isagoo cuskanaya awoodda ogolaansho ee uu siinayo qodobka 9aad ee dastuurka ku-meel gaarka ah ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa kulankan isugu yeeray xubnaha golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya si uu warbixin uga siiyo arrimaha doorashooyinka dalka madaxweynaha ayaa baarlamaanka la wadaagay dadaalada ay dawladdu ku bixinayso hirgelinta doorashooyinka qaranka waxa uu isdul taagay sida ay uga go'an tahay madaxda heer federaal fulinta heshiiskii 17 Sebtembar ay wada gaareen madaxda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada waxaan rabaa inaan halkan aan ka cadeeyo inaan diyaar u nahay hirgelinta heshiiskii 17 Sebtembar waxaanan idinka codsanayaa inaad nagu garab siistaan oo nagu garab istaagtaan sidii aan walaalahayn aan u qancin lahayn inay qayb ka ahaadaan hirgelinta heshiiskaas 17 Sebtembar taasoo hadday suurto gasho ama suurtagali weydo ay waajib tahay inaan mar kale dib laydinkugu soo celiyo sidii aad uga qaadataan kaalintiina ku aadan arrimaha masiiriga ah ee dalka madaxweyne Farmaajo ayaa xusay caqabadaha siyaasadeed ee soo wajahay heshiiskii laga gaaray doorashada iyadoo xukuumadda federaalku ay muujisay tanaasul badan si loo gaaro heshiis siyaasadeed oo ka turjumaya higsiga iyo himilada shacabka Soomaaliyeed ra'iisul wasaaraha u diray ra'iisul wasaaraha wuxuu maxaan ku raahdaa joogay meesha la Garowe magaalada Garowe tobanbari ku dhawaad 7 bari markay ugu yartahay waxayna ahayd inuu ku qanciyo wixii iyagu ay saxiixdeen oo ay ku heshiiyeen in la fuliyo ay ugu horeyso magacyadii guddiga in la soo gudbiyo waa lagu fashilmay waa suuroobi weydii xaqiiqatan waxaan idin sheegayaa arrimaha doorashooyinka iyo guud ahaan xaaladda Soomaaliya ay ku jirto waxa ku jira faragelin shisheeye xaqiiqatan anu marna ma oranayo hebel iyo gobol hebel yaa faragelintu ku badan tahay ama ka yar tahay laakiin xaqiiqada jirta waa taas weeye oo aad moodeyso inaysan waxba nooga hagaagin madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo isagoo si gaar ah warbixin uga siinayay 188 ka xildhibaan ee fadhigan soo xaadiray shirkii u dambeeyay ee Samareeb 4 ee madaxda qaranka iyo kuwa dawlad goboleedyadu ay wada xaajoodka uga yeesheen hanaanka geedi socodka doorashooyinka dalka waxa uu muujiyay inay jirto rajo wanaagsan oo ku aadan in is-afgarad madaxdu gaaraan madaxweynuhu waxa uu tilmaamay in madaxdu ku ballameen kulan kale oo looga hadlayo arrimaha doorashooyinka dalka waxa uu ka codsaday xildhibaanada baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya inay qayb ka noqdaan xalka lagu doonayo in Soomaaliya ay ka dhacdo doorasho heshiis lagu yahay haddaba kii ugu dambeeyay oo aan cilaamiyay oo Samareeb 4 aan oran karno oo kii ugu dambeeyay waxaan filayay haddii aan halkaas ugu tagno inaan wax isla soo dhaweyn karno nasiib darro iyadana ma suuroobin oo warbixintaas waa iga soo horeysay oo wasiir Dubbe yaaba xalay shaaciyay sababihii keenay in hawshaas ay hore u socon laakiin raja jirta waxaan ku ballanay in aan hore u soconno haddii markaan ay sidaas wax naga noqdeen aan u ballanno kulamo dambana aan u sameeyno si aan xal uga gaarno maxaa la yiraahdaa impaaskaas ama hakadkaas na galay Shucayb Maxamed warbaahinta qaranka في Hargeysa